السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkan waa kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ka faalooda ee gal ganacsi kulanti wacan barnaamijkan waa barnaamijka toddobaadlaha ah ee aan aalaba ku faaleyno arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha si guud ee caalamiga ah toddobaadkiiba mar gelinka dambe ee arbacada aad ka daawataan kanaalkeena gal ganacsi boggeena Facebook iyo sidoo kale barteena YouTube barnaamijkan mar waliba waxaa ka qayb qaata oo kaalinta ugu weyn ku leh Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa hay'adda cilmi baarista ee SRA sidoo kalena bare dhaqaalaha kana faalooda arrimahan. Dr. Shaafici ayaan marka hore barnaamijka kusoo dhaweynayaa si uu marka hore daawadayaasha ula socodsiiyo si kooban qodobada aan diiradda ku saarayna maanta. Cabdiqani aad u mahadsantahay adiga iyo tiimka gal ganacsi ee barnaamijkan daadinayo dabcan isbuucan waxyaabaha aan rabnay inaan barnaamijka aan ku falanqeyn waxaa kamid ah Yurub oo waxyaabaha haddii aa ogeyda Soomaaliya iyo Africa oo abaaro ka dhacayaan oo biyo la-aan ay ka jirto maanta Yurub micnaha climate change-gii isbedelkii cimilada caalamka wuxuu keenay in Yurubna ay qayb ka noqoto in maxaa la adduunka abaaraha ka jiro marka barnaamijkan ayaa maanta ku faaqidi doonaa bal abaaraha Yurub ka jiro iyo saameynta cuntada iyo dhaqaalaha ay ku yeelan doonaan iyo ganacsiga sidoo kale waxaan rabnaa in barnaamijka maanta aan ku faaqidno sidaa ka warhayso Ruushka iyo Ukraine dagaalkii ka dhacay wuxuu keenay inuu fursado Africa u abuuro marka waxaa la yidhi macnaha nin jabkiisa ninay guushiisa tahay marka bal Africa iyo fursadaha ganacsi ay ka heshay dagaalkii Ukraine iyo Ruushkii ka dhacay idin waa ku fiirin doonaa waxaan kaloo aan ku fiirin doonaa waayadan dambe haddii aa ogeeday sportiska in loo daawado ama in lagu madadaalo maanta sportiska wuxuu gala ganacsigii caalamkiina maanta lacago fara badan ayaa waxaa laga sameynaa ganacsiga sportiska marka arrimahaas adduunyada iyo sida ganacsiga ugu noqday sportiskani barnaamijka maanta inaan ku faaqidno ayaan rajeynayaa aad u mahadsan tahay waa saddex qodob runtii maanta marka toddobaadkan loo fiiriyo wararka dhanka dhaqaalaha in la falanqeeyo u baahan barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ognahay arrinta abaaraha haddii aan ku bilowno ustaad adduunka oo dhan waxaa laga cabanayaa sicir barar xaalad dhaqaale oo adag ayaa lagu jiraa oo marka la fiiriyo dhowr arrimood loo sababeeyo tii laga soo baxayay COVID-19-ka iyo dagaalka hadda Ruushka iyo Ukraine Yurub maxaa la leeyahay cabdiqani aad u mahadsan tahay sida hadda ugu dhawaajirto waxaa moodaa adduunyada marka qaarkood waxyaabo oo waxaa jiro ribaani ah boqolkii sano lasoo dhaafay galbeedka iyo Mareykanka adduunyada ayaga hogaaminaya haddii dhaqaale ahaan la heeday haddii military ahaan la heeday iyo haddii siyaasad ahaan la heeday marka adduunyadana waxaa dabiici ah in 100 sano kasta kadibba ay wax isbedelaan marka waxaa moodaa wax awoodda bini'aadanka ka baxsan inay socdaan sida hadda aan ka dhawaajisay marka hore cudurro oo corona imaaday adduunyadii dhibaatadaasaa ka dhacay haddana dagaalaa ka dhacay haddana isla dagaaladii way qaboobeen haddana waxaa imaada abaaro iyo kuleyl iyo dab oo iswato marka maanta Yurub waxay leedahay ama problem ka haystaa dhinaca cuntada oo waxaa jiro inay dhibaatooyin badan ay ka haystaan cuntooyinkii oo la heli lahaa maxaa yeelay marka uu roob la-aan ay dhacdo oo dadkii beerihii waxay bashaa waayaan waxaa arkaya hadda mar dhaweyd beeraha canabka oo Yurub Holland oo kale iyo canabkii oo soo bixi lahaa oo la la-yahay macnaha roob dartiis biyo la-aan u haysato marka haddii aan maqli jirno Soomaaliya abaaraha ka jiro cunto la-aanaa ka jirto dadkii gaajo u dhimanayo maanta kuma koobna kuwii taqbixiyaasha loogu yeeri jiray marka macnaha waa circulation ayagu ku imaaday weli waxyaabaha aadka oo loo hadalhayo waxay tahay cimilada caalamka macnaha waxaa leeyahay adduunyadii markaa aragto warshadaha waxay hawada ku deynayaan hawo oo kuleyl ah iyo chemicals iyo waxyaabo wasaqe wixii marka waxay saameyn ku yeelatay inay cimilada caalamka isbedesho marka hadda waxaa aad marka loo hadalhayaa haddii ay raashinkii ay waxay cunaan waayaan dabcan dhaqaalihiina uu aad u liito maxaa lahaa wadamadii kale oo Africa ama ayagana aysan diyaar u ahayn aysan quudin karin beerahoodii way haystaa example Soomaaliya oo kale dhul fiican wax soo saar la haystaa laakiin technology ay wadan kale ku qoodiso ama iibgeysa ma hayso marka hadda Faransiiska oo kale waxaa arkay meelaha qaarkood webiyada qaarkood oo qalalay hadda arki jirto webiyada Shabeelle iyo Juba ama labadii Soomaaliya oo qaleel naqanayo oo caruurta ay kubad ku cayaarayaan maanta Yurub iyo Faransiiska iyo ka jirtaa marka arrintan
وأنا مركب وحن كفيرنا سي قال جناحسي أهان بقالها maxay saameyn ku yeelanaysaa waxay saameyn ku yeelan kartaa kow waxaa imaan kara waxa loo yaqaano sicir bar waxaa dadka markay waxay cunaan waayeen baahidii iyo dhaqaalihii waxna demand and supply inaa dadka lacag way haystaan laakiin raashin ma lahayo dalabkiyaa jiro baahidan la qabtiri karo lama xaqibtir karo sidoo kale dad badan oo macnaha Yurub marka la fiirsho waxaa ku xiran wadamo badan oo caalamka ah warshadihii meesha ku yaalin hadda warshadihii marka wax ay dib u sameeyaan ma heli karaan marka taas marka waxay keeneen xataa Afrika saameyn ku yeelan maxay la Afrika waxaa laga yaabaa raashin badan oo Afrika yili in loo Yurub loo suuq geeyo haddii Yurub loo suuq geeyo marka dadkaas maadaama ay lacag haystaan dadka Afrika jooga lacag haystaan marka waxaa abuurmi doono dadkan lagu joogo marka raashin Afrika yaalla dadkii Afrika joogay marka in ay nolosha qaali ku noqoto bravo macnaha lacagihii nin lacag kasta markuu yimaado dadkan waliba shirkadaha iyo beeraleyda iyo waxaa laga yaabaa haddii aan tusaale soo qaadano kiish bariis ah oo maanta Muqdisho yaalla haddii la yiraa European-ka u baahan halkii $100 shacabka Soomaaliyeed ku iibsan lahaayeen $200 ay iibinayaan reer Yurub ku iibsanayaan in la darbeedo marka xagga loo wada qaado haddii xagga loo wada qaado marka Afrika maxaa ku dhacay marka anaga meesha aan ka fiirino waxay tahay dabcan kuma faraxsan dad bini'aadan inay gaajo iyo abaar iyo ku dhacaan haddana laakiin dhinaca kale saameynta ee annaga nagu yeelanayso oo Afrika joogno iyo adduunyadii kale taas waa midda labaadna waxaa macquula marka sidee aan sheegay adduunyada waa tilkala ayamna dawlaha soo shalay haddii ayaga ay ahaayeen deeq bixiyaal cuntada ayaga Afrika u soo qaadayeen waxaa suurtagal ah marka wiilano 100 sano soo socoto in la arko Afrika oo cunto u qaadayso Yurub oo reer galbeedka ayagana ay dhahayaan maxaa yeelay hadda wadamadan inta badan ayaga waxaa laga yaabaa inay haystaan technology laakiin beerihii wax soo saarkii kale oo dabiiciga ahay waxaa uga badan Afrika marka arrinta waa arrin hadda isbuucan aad loo hadlayo teeda kale waxaa intaas dheer daba aad u kacay ana markuu kulaalkii batay geedihii way qalaleen daba ka dhaxay Francisco kale daba ka kacay wadamo kale oo Yurub daba ka kacay kala ogeyn sanadii bar ka hor in 2 sano ka hor inay marinaya oo uu muddo gubanayay kaymihii Mareykanka kale Amazon yes ay muddo gubanayay marka waxaa moodaa in kulaalka jiro abaarihii dhaxay isbedelka cimilada wixii oo dhan marka inay maanta ay marka qowlka si aan soo gabagabayno saameynta ugu badan ee abaaraha Yurub ka jira yey ku yeelan doonaan dhanka dhaqaalaha dabcan waxay ku yeelan doonaa isla European-ka ku yeelan doontaa ayagana saameynta ugu badan oo ku dhixi doonta maxaa yeelay dabcan population-kooda ama shacabkooda way badanaa intaas waxaa dheer dad badan oo Africa ka tegay Asia ka tegay oo Latin America ka imaaday ay Europe oo dhan isugu tegay marka iyadana saameyn badan ay ku yeelanaysaa marka kulay taabanaysaa ayay si gaar u taaban doontaa laakiin again Africa ma huri doonto maxaa yeelay Africa waxaa bilaaban doonta in sida aan sheegayna raashinkeeda iyo waxeeda loo qaado Yurub taasoo idin saameyn ku yeelan doonto waa san tahay isla qodobkan si aan dadka Soomaaliyeed uga faa'iideyno maadaama aad tahay khabiir dhanka dhaqaalaha ah waxaan ognahay sicir bararka Soomaaliya waa uu sii socdaa marka dambaysa dhanka cuntada qutul daruuriga sokorta oo kale bariiska burka waxyaabaha kale ee caadiyan loo iibsado sida saliidda maxaa dadka si kooban kula talin lahayd si arrintan nolosha loogu maareeyo عندنا waa su'aal aad muhiim ah horta inta Soomaaliya ay ku xiran tahay in dibadda wax looga keeno su'aal barkan waa sii soconaa kaliya waxaa loo baahan yahay Soomaaliya wax soo saarkeeda gudaha almost waa zero ku dhow yahay sida aan sheegnay hadda aan ka hadlaynay lacag oo dadka Yurub iyo Mareykanka joogo waxay haystaan dhaqaale aad u fara badan marka waxay awoodaan in ay lacagahooda ay ugu gacan haatiyaan beeraleyda wadamada kale wax ka soo saaro marka Soomaaliya marka la joogo dekadaas wixii kasoo degaa la quutaa marka waxaan dhihi karaa haddii la rabo in isbedel la sameeyo waa inaan annaga aan u laabano dhinaca wax soo saarkeena beeraha marka haddii la rabo in Soomaaliya ay ka baxno sicir bararkan maxaa yeelay bariiska Soomaaliya jowhar oo kale bariis aad u macaan ka baxo hadda qudaar nagu filan ma haysano marka waxaan ku talin lahaa wax soo saarka gudaha in la xoojiyo
maadaama maanta ay Yurub iyo Mareykanka ayagii ay abaaro iyo cimilada isbedelka caalamka ay saameyn ku yeesheen xataa waxaa macquul in la gaaro heer haddii aad lacag haysato wax kaa gata aweyso maxaa la haddaan la helin example qamadiga hadda oo kistira oo qamadiga laga soo qaadi jiray Ukraine uu istaago waa arta Soomaaliya wax ka dhacay marka kulli si guud waxaan ku talin lahaa ilaahay wuxuu na siiyay dhul beereed aad u fiican waxaan haysanaa natural resources kale oo tiro badan oo maxaa la xoolihii ama beerihii ama kalluumaysigii haddaanan intaas aanan u laabanin maalin waxaa la gaari doonaa lacagta ugu badan Soomaaliya hadda waxay ka imaataa Yurub iyo Mareykanka oo dadka diaspora ay soo dhiibaan haddii dadkaas lacag ay soo dhiibaan ay waayaan haddii la waayo raashin adduunyada kale dan annaga fursad waxaa haysanaa adduunka inaan lacag ka sameyn marka waxaa moodaa in jaanisku Soomaaliya si ilaahay oo dabiiciyan ay fursadda usoo gaarayso laakiin hadda aanan u diyaarsanayn inaan ka faa'iidaysano way aad u mahadsan tahay si barnaamijka intiis kala soo koobano qodobada kale waxaa qayb ka ahayd arrinta ku saabsan isla qodobkan waxaa la xiriiray Africa oo wax u dhoofinaysa UK ka waran siday Africa uga faa'iidaysan karaan oo hadda warbaahinta u hadal haysa dagaalka Ruushka iyo Ukraine kadib Europe in wax loo dhoofiyo Africa looga dhoofiyo hadda qani waa mahadsan tahay anaa Europe mar walba waxaa moodaa si smart ah oo caqli inay ku shaqaysanayso Ingiriiska wuxuu ku dhawaaqay ku dhawaad 10% inuu dhimaayo canshuuraha alaabta Africa uga imaato ana Africa alaabo badan laga keenaa oo ay haystaan laakiin Europe waxay rabtaa inay dhahdo canshuurteeda ka dhaafeenaay alaabtaas noo keena si tartan loogu galo oo alaabta loogu geeyo marka hadda waxaan ka hadlaynay wadamada wax soo saarkooda hoos u dhacay cuntadii way yaraatay waxaa imaaday abaara imaatay dimaankiga badan marka Africani wixii way haystaan laakiin waagi hore Africa suuqa Yurub waa loo diidi jiray hadda marka Ingiriiska wuxuu leeyahay Africa suuqiga u furaa iyadoo weliba shuruud la-aan in waxaa laga Africa iyagoo tagaayo tuugs bariya dhahayo suuqiina noo fura alaaba haysan li Germany naga raali ahaad meel ka gadanayna wax maxaa yeelay quality-gi ma fiicno isla Africada noocaas aheeday oo Ingiriiska maanta wuxuu leeyahay war canshuur meeli ka qaaday ii keena alaabtiin example dharka kobaha waxyaabahaas ay codsanayaan sidoo kale dhuxusha oo South Africa oo kale maadaama Ruushka August hadda bishan wax ka dambeeyo uu laga joojinayo in dhuxul oo ka soo qaataan Yurub dan suuqa kaliya u banaan waa Africa marka Africa hadda fursad u imaatay shalay daasoo aan ku dhahay marka adduunyada isbedel ka socdo oo ilaahay oo dabiiciina ana Africa meel kasta oo lagu cadaadin karo lagu cadaadiyay laakiin hadda Yurub iyada ka daba imaatay maxaa la hadii oo dagaalo ay qabsadeen shidaal aysan haysanin dhuxul aysan haysanin beerihii maxaa la abaare ay dhaceen marka waxay ku qasbanaan doonaan in Yurub ay dhahdo Africa wixii noo keenay daasoo marka anaga Soomaali ahaan maalin waxaa dhici doonto shirkadihii oo mooska iyo cambadi iyo babaygi in Soomaaliya laga qaado Yurub la geeyo hadda markasto marka aan isku dayn inaan wax u geeyno waxay dhahaan quality-gi ma fiicna hebelo waay maxaa yeelay already beeraleydooda ayaa ku filan wali ku filan marka ay beeraleydooda wax soo saari waayaan waxay ku qasbanaan si shuruud la-aan in meel kasta wax ka helayaan Soomaaliya kamid tahay exactly marka daasoo hadda marka waxay bilaabeen South Africa inay ka qaataan iyo wadamadan maxaa hadda Kenya oo kale waxaa loo ogolaaday in Ingiriiska ay wax u geyn karto iyadoo canshuur aan laga qaadin marka canshuur dhaafka waxyaabaha lagu soo jiidanayo in badeecada Africa la geeyo Ingiriiska waayahay xamaasan tahay qodobkaas haddii aan intaas kaga gudubno dhanka sportska waxaan oganahay marbaheer ayuu adduunyada ka maraa dadka dhaqaaliyahanada ah si guud xilligan waxay u tilmaamayaan inay tahay casrigii laga ganacsanayay sportska maxaa ugu dambeeyay dhankaas hadda qani aad u maasan tahay dabcan sportski haddii aan ku ogeeday sports oo lagu madadaalo hadda wuxuu noqday sports ganacsi wadamo xataa waxaa laga gudba shirkado hadda example marka aad fiiriso wadamada carabta kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska iyo Yurub wadamada carabta iska leh qaarkood waxaa laga leeyahay Mareykanka hadda daqiiqado ka hor mar aan social media fiirnay waxaan arkay Elon Musk oo ku dhahayo waxaan gadanaa Manchester United Manchester United waxaa laga leeyahay Ingiriiska inkastoo kuma daaladana uu leeyahay wax hadda dhow maaha oo joke oo dhahayo waa kaftan laakiin waxaa moodaa markaa fiirso kooxda Manchester City
carabta iskale waa kooxaha ugu waaweyn oo weliba 4 sano oo ingiriiska 5 sano soo dhaaf 4 sano kamid ah horyaalka qaaday kooxda kale oo laga dhahay PSG oo ninka dadka ugu kubadda cagta ugu mushaaraadka badan oo sida Messi, Neymar, Mbappe ay kulligood ay wada joogaan haddana kulligood waxa laga leeyahay carabta laga leeyahay dhawaan waxaa la gatay koox kale oo Newcastle loo oo ay gaatay Sacuudiga Chelsea waxaa ogeeyay nin waxa iska lahaa Rush oo inkastoo hadda dagaalka Rushka darteed oo loo wixiyay marka Ibrahimovic ma Roman Abramovich so marka waxaad dareemaysaa haddii aad ku ogeedo kubadda cagta inay tahay meel kubad macaan oo qurux badan oo ay ku madadaalaan hadda waxay noqotay ganacsi weliba xataa tababarayaasha oo marka aragto oo kubadda waxaa leeyahay aniga Bruno qurux badan u baahan waxaan u baahanahay yaa koob qaadi kara koob yaa qaadi kara soo hadda nin oo la dhahayo waxaa jira Mourinho Jose Mourinho waa nin oo marka waxaad dareemay ma kala jeclo kubadda macaanteeda waxaa laga yaabaa 10 sano u dambeysay Jose markaad fiiriso Real Madrid iyo Chelsea iyo Manchester United iyo hadda inta Roma joogo meesha uu taga asaga koob u qaado soo markaas wuxuu ku leeyahay aniga ciyaar qurxan ma hadda waxa dareemaysaa marka kubaddi way ka soo gudubtay ciyaar qurxan daas waa hadda ninka like Arsene Wenger oo kale Arsenal joogo jiray ciyaar qurxan iyo waxaas odayga daalana dadka qaar waxay dhahaan ma kale taageerayaasha Arsenal lagu dirin marka maxaa u jeedaa marka muhiimaddu waxay tahay anaga ka ganacsi ahaan marka fiirneen adduunyadii maanta wiil yar oo laga yaabo oo secondary soo dhiganin jaamacad soo dhiganin a week waxay sameynayaan $400,000 $300,000 bishii waxaa laga yaabaa 2 million 3 million ay sameynayaan hadda yarkan oo Faransa Mbappe ma laha oo kale lacag fooq caqliga la siiyay marka kubaddii cagta marka way ka tagtay xilligii madadaalada waxay isugu tagtay xilligii ganacsiga dadka marka dhalinyaro badan oo Soomaali ah anaga laakiin ka Soomaali ahaan marka fursadaas intee ka arkeenaa meesh aan ka ciyaar lahayn lugaha waxaan ka ciyaarnaa maskaxda game ciyaarnaa marka anaga lacag ka sameeyaa marka hadii xatii walba ay wiilashayni inta baxaan ee garoomada tig lahaayeen ay kubadii list lacag ka sameeyeen laakiin Africa dhinaca kale Soomaaliya ida orodka ku fiican tahay oo Ilaahay macnaha mo faarax inkastoo Soomaali ahayn iyo Cabdi Bili macnaha marka joogto East Africa lacag kama sameeyaa sportiska waxay lacag ka sameeyaa orodka marka برنامج من معناته عن كذا الحياة هاي سبورتسكي إن دقالة سوق دقالة حتى مركز الصومالي اللي جوا مركز وحن رجالنا شركتها وين وضعك كجرا إن عملوا عرفتوا إن سبونسر جريان كوحة أو لوكال كه أيوة أركا إحنا جناح سجى نفترك يسوي حق المحل الحيسين اللي وصل معين كلام وحياة مركز إن كوحدة مركز لقدرنا هذا إكزامبل جلسي وكله وحملنا كل وقت إن 4 بليون وسمعنا 2 بليون و3 بليون الحق ما حصل لو قيمة مركو قدنا يا أبراموفيتش هذا حلو قدي 100 مليون نحن عاص هذا بليون مرة مرة قيمينه أركاي برشلونة كان 5 بليون دولار لو قيمة مركا الديو حين جوجنا سبورتسكو ونقد جناحسي halka sportsmanku uu ku aamay daalo way dadka sportska dhinaca dhaqaalaha ku jahwaraysan waxay isweydiiyaan sad waxa kamid ah waxaa la arkayaa tusaale ciyaaryahan Burhan oo kale ayaa waxa iibsanaysa koox ka ciyaarta heerka koowaad ee qaranka waxa ay ku iibsanayaan 1 milyan tusaale ku saqadanayna ama Europe oo kale waxa laga yaabaa in dhowr milyan lagu iibiyo hal ciyaaryahan lacagtaas ciyaaryahanka lagu iibinayo waxaa faa'iidaya ma kooxda uu ka tagayo mise nafsadiisa dad badan isweydiiyaan su'aal aad u wanaagsan waayo maadaama tahay inkastoo aan sportsman ahayn dhinaca ganacsiga le aan ka fiirnaa dabcan horta lacagaha inta badan waxaa qaadanayo kooxaha kala iibsanayo oo lacagta qaadaysa dabcan laakiin ciyaaryahanka mushaaraad aad u fara badan oo qaadana qaarkood waxaa laga yaabaa meesha dadka isweydiina waxaa waaye war lacagtan tirada badan xaggee ka imaanaysaa maanta ganacsiga wuxuu maraa finaanada marka arto waxaa lagu dhajiyaa magacyo waxaa lagu dhajiyaa sponsorska shirkadahaas ayaa lacag aad u fara badan laga sameeyaa waxaa arkaya qolyo dhahayo war finaanada xataa meel kale iska dhaafay marka ciyaaryahanka uu xanaaqo meesha hoose oo marka uu saan dhaho kale halkaan oo kale in loogu dhajiya xayeysiin haddii marka uu daqiiqadaas uu gool uu khasaariyo si uu saan u dhaho kistaas kaliya laga arko meeshaas gadaale maxaa yeelay haddii meelaha lagu dhajiyo waxaa leeyahay sponsorkeeda waa qaali waxaana markuu gool dhaliyo
marka uu gool qasaariyo marka uu dabaaldegayo keliya saanle ha dhaho macnaha fanaanadiisa afka qubsi meesha hoose loo arko qaarkood waxaa laga yaabaa in inta lagu marka lacaga tiro badan waxaa laga sameynaa xayeysiintii oo macnaha lacaga waali ah oo laga yaabo hadda daas waa dhalinyaro Soomaaliya badan ay YouTubers u noqdeen oo la dhahayo YouTube-ka kulli barnaamijkaas maalin kale ka hadli doona si YouTube-ka lacagta looga sameeyo lacagtan Google AdSense wuxuu yahay caalamiyan iyo gudaha dalka sax looga sameeyo lacag mana kala doono laakiin hadda marka ciyaaryahankan malaayiinta dollar la siinayo hadda waxaa arkaya Manchester United oo kale 11 qofood oo ciyaarayso waxaa lagu qiimeeyay 442 milyan oo dollar koox habeen dhawid ka raysay maqaan 20 milyan wax u dhigantay ahayd marka xagee lacagtaas ka imaanaysa yaa bixinayo marka inta badan lacagtaas waxay ka imaataa waxaysiinta hadii aan nida garoonka hadii aan ciyaaryahanka oo kale Ronaldo oo kale xagada uu ku saar hadii soo qaadan waxaa la dhihi karaa sidaan filayo Manchester United hadii ay tusaale ay ciyaaryahan ku soo iibsato lacag dhan 5 milyan oo dollar balse ciyaaryahankii weeraryahan uu yahay oo badhig wanaagsan uu sameeyay qiimihiisa kor u kacaya markii ay 5 milyan soo iibsatay waxay si iibi kartaa 20 milyan qiimaha suuqa maadaama heshiiskiisa ay haysato bravo taas oo kale xataa waxaa kale oo raayna ku dalcad qanin intaas oo saxan tahay finaanada ciyaaryahan waxa laga yaabaa marka example Ronaldo oo kale Manchester uu yimaado hadii la daabaco 5 milyan oo finaanadaas oo in la iibiyo rabo ala halka xaba loo gadaa $50 qiyaas meeqay noqon kartaa waxa marka ciyaaryahanka lacagta laga bixiyay finaanada kaliya in laga soo celiyo marka ways badan oo waxaa jira lacag looga sameeyo sportiska laakiin Afrikana anaga marka waxaan nahay ismaaciil kiram waa daawana waxaan marka in halka uga faa'iideysano ugu dambeyn ganacsatada Soomaaliyeed shirkadaha iyo noocyada ganacsi ma fahamsan yihiin heerka ay gaarsiisan tahay xayeysiinta ma fahamsana xaqiiqdii waxa laga yaabaa marka aad fiiriso xayeysiimaha Soomaaliya laga isticmaalo kulli oo less waa hal nooc in la isticmaalo maanta laga yaabo in boor hadii la xayeysiin la sameeyna boora meesha lagu dhajinaa idaacadan geenayna idaasi marka many ways ka badan ee idaacadaha ee looga sameeyo xayeysiinta iyo qaabka loo sameeynayo iyo wixii loo sameeynayo waxaa moodaa inaan aad uga dambeeyo marka aad fiirsato xayeysiimaha qaabka loo sameeyo dunida kale marka waxaa laga yaabaa hal isku mid hal qaab ah oo idaacada daad dhageysato hal cod waxaa maqlay kulli lagu wada xayeysiina marka xataa hadii product cusub la keeno waxaa laga yaabaa codki kale in la saaro marka qofka uu dhaho codkaas ma dhaho tii aan hor u qiino waa marka waxaa moodaa expertise-ka ama dadka qobarada xagga oo marketing ama xagga xayeysiinta in Soomaaliya wali aysan heerka la iska gaarin waliina ganacsatada natirkooda kuma baraarugsan waxa laga yaabaa inuu qof ganacsiga oo lacag badan ku bixiyo waxyaabo kale laakiin in alaabtiisa la market gareeyo suuqa loo geeyo meelo badan ee mudan in lagu sheegan aan lagu soo bandhigin aad u mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa difaaciina inta suuga mahad celino barnaamijka toddobaadkan gal ganacsi arrimaha ganacsiga dhaqaalaha si guud aan ku falanqeynaynay saaxiib baan intaas haddii Allah uu daraal ka noqdo waxa ay noqonaa toddobaadka dambe iyo qodobo kale xiiso leh insha Allah. Assalaamu calaykum.